مسؤولينta komishanka xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland ayaa tababaro lagaga hadlayo dhibaatada cudurka HIV/AIDS-ka u qabtay mas'uuliyiinta laamaha dawladda iyo culimada kala duwan ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaana kulamadaasi diiradda lagu saaray sidii dadka looga wacyigelin lahaa cudurkaasi iyo sidoo kale maamulada dejinta shaqada komishanka xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland waxaana halkaasi ka hadlay siduwaha komishanka xakamaynta AIDS-ka ee gobolka Togdheer Mahdi Jaamac Nuur agaasimaha waaxda daryeelka iyo daaweynta komishanka xakamaynta AIDS-ka Soomaaliland Sahra Maxamed Xuseen xubno kamid ah dhakhaatiirta komishankaasi waxaana ka warrameen ujeedada kulamadaasi loo qabtay culimada iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee gobolka Togdheer maanta halkan waxaanu isugu nimi inaynu ka wada hadalno kulihii hagista iyo isku dubaridka ee gobolada oo halkan lagu sameyn doono waxaynu maanta rajaynaynaa insha Allah inaynu ka soo saari doono wax fiican aynu sameyn doono guddiga hagista oo gudoomiyaheedii aynu dooran doono gudoomiye ku xigeenkeedii iyo inaynu sameyn doono hawl billa ah oo aynu bishiiba mar kulano group naga mid imka isha Burco iyaguna ku wadaan tababarkan la mid ah oo ah culimada gobolka oo aan doonayno inaanu iyagana ay masaajid ay wacyigelintii komishanka ka wadaan maanta 7 wasaaradood ay isu yimi waxa weeyaan 7 wasaaradood oo komishanka u gaara oo la shaqeeya oo la yiraahdo hagayaasha oo 7dooda wasiir ay nala shaqeeyaan iyo kolba wixii aanu tala iyo tusaalaba iyaguna ay garbaha iyaga yihiin waxa ka mas'uula markay gobolada tahayna 7 isuduwe oo uu chairman u yahay barasaabka gobolka Togdheer shirkayagan iyo ajandaha nu soconay wuxuu daarnayay in maamul daadishin aan sameeyno 7 gobol ee waaweyn ba xarumihii iyo xafiisyadii waan ka furnay inaanu maamulkii daadishino oo aanu goboladii oo dhan kormeerno sidii aanu xarumihiina u soo eegno iskuna xidhno madaxda gobolka iyo shaqaalaha noo jooga hay'adaha ee gobolka dad aan isku nimadnay iyadoo ah laba qodob qodobka koowaad oo ah inaan culimadu ay doorkooda ka qayb qaataan qaybta wacyigelinta bulshada ee maartay ka hortagga HIV-ga qaybta labaadna waxa weyn in aan bulshada gaarsiino faquuqa dibta lagu hayo dadka xanuunka la nool in la faquuqin oo iyaga laftirkeedu maartay aan dareensiino naxariistii muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inaynu ka wada qayb qaadano xanuunkaas sidii looga hortagi lahaa dadka qabana loo daweyn lahaa xarumaha loogu soo xidhi lahaa dadka sidoo kale xanuunka qaba de wixii taakulo iyo taageeraha loo siin lahaa iyo inaanay bulshadii de faquuqin qof waliba waxaan wax xanuunku de cidna ma yaqaan markaa qofku doonaaba ku dhici karaa nin iyo gabadh mid weyn iyo mid yar mid muslim iyo mid gaal intaba uu ku dhici karaa bini aadanka wax xanuun sida darteed iyadana waxa la inaga doonayaa dadka inaynan de markaa takoor gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa dhankiisa bogaadiyay talaabooyinka lagaga hortagayo cudurkaasi shirkan muhiimka ah runtii la oran karo wuxuu ku soo beegmay waqtigiisii waana u mahad celinayaa komishanka xakamaynta AIDS-ka maadaama maanta runtii arin horay in loo fuliyo ay ahayd saaka ay waqtigeedii ku soo beegmay guddiga heer gobol maxay tahay ka shaqeynaysa xakamaynta shaqo runtii aad iyo aad muhiim u ah dadkeena iyo bulshadeena intaba aan maxay tahay saameyn weyn ku yeelanaysa hadaan ayna ka hortagin ama xakamay Khaliil Barrawran warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco.